بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan falanqeyn ku saabsan kulanka weyn ee u dhaxeeya labada kooxood ee Manchester City iyo Watford oo markaasi koobka FA-ga marka ay ku dagaalami doonaan caawa waana kulan aad loo wada sugayo Axmed Cali Kaahiya ayaa ila jooga aad baan u falanqeyn doona waxyaabo ugu waaweyn ee la xiriira kulankan bal haya Kaahiya وما سنتهاي إبراهيم عيارتن عاوة لقد داون دونه الدنيا أو ده سكوها مان سيتي واتفورد وعيار هي سله أو فاينل كي FA كاب كا أي وضع عيار دونان كوها مان سيتي واتفورد جرونك ويمبلي أي عيار تاسو كدع دون تاو حنا وصاد دونا كولنكو عاوة هالساعة مركز ساعة دقيقة أفريقيا تهاي والوا أفرع عيار تاس مركز أفرتو هذا عبيتان شه سانو هستاد عيار تداونه لكن يسكول فوقانو ترى واحد ما كأدري بتيس كم مشغولين إبراهيم عيارتاسي مركان فيرنو صادال يرنا عن كبحيو لبضو كوحود العيارات كاني سيدا يوكلا أود صريان مكلا فيريو وعلى ليه كرا إنك سو فاينل تهايون فاينل لما قياسو سيديسا وكوحد يرقي تنوين واسكميدا فاينل أديات فاينل كوحول وحي عياريسا كلان أدق ولا فها أو إسلادا كوب كان كوريا له ku guuleyso marka final sidiisa lama saadaalin karo laakiin waxaan u badan tahay 80 Man City inay awood badan tahay City sanadkan koobabkii Ingiriiska oo dhan way aruursatay waxa la socotaa midkan ay final ka joogto FA Cup marka laga reebo inta kale ayda la tagtay League Cup-ki waa qaadatay horyaalkii waa qaadatay Community Shield oo la dhex dhigi karo labada iyadana markaasi waxay u badan tahay inay qaadi karto marka kooxaha waaweyn ee top 6 lagu magacaabo ayay ceeb u noqon doontaa in City oo koobka dhan aruursato kulankaasi marka waxyaabo badan laga calaamadiyay waxyaabo laga soo calaamadiyay waxa kamid ah 10kii kulan ugu dambeeyay oo labadan kooxood iska hor yimaadeen City ayaa badisay Watford marna ma guuleysan marka waxaan la qiyaasi karin oo aad u fog waliba waxa lagu leeyahay Sergio Aguero weeraryahanka kooxda Man City waa superka waxa lagu leeyahay finaliska marka kulamada finalka waliba waxa lagu leeyahay waa superka goolalinta FA Cup-ka waxa lagu leeyahay wax ka horeeyay laga soo bilaabo 2011 2012 xil ciyaareedkaas Sergio Aguero waxa uu dhaliyay 18 koob 18 gool oo FA Cup-ka uu ka dhaliyay waxa lagu leeyahay Aguero ayaa dhaliyay every round ama wareeg kasta oo final ah inuu caawinayo kooxdiisa 90 daqiiqo waa dheelay waxa uu markaasi 2013 finalkii City ay lumisay oo Wigan ay markaa ka qaaday ayadana sidoo kale markii waa ninka waxa uu ugu badan oo ciyaaryahan kasta waa ninka ugu badan marka City imisa koobkan FA Cup-ka ay haysata Watford imisa haysta kooxda lagu magacaabo Man City waxa ay ku guuleysatay koobkan 5 jeer waxa ay lumisay 5 mar 10 mar ayay tagtay finalka FA Cup-ka 5 mar waa ay ku guuleysatay 5 marna waa ay lumisay sanadaha ay qaaday waxa ay kala yihiin 1904 1934 1956 1969 iyo 2011 waxa ay lumisay 1926 1933 1955 1981 iyo 2013 waa dareemi kartaa marka 2011 ugu dambeysay intii ka dambeysay marnaba ma aysan ku guuleysan marka waa waqti aad u fog Aguero waxa lagu leeyahay waxa uu ku lug leeyahay 12 gool todobadiisii 7 kulan oo Watford oo kor yimid waa dareemi kartaa Aguero waa uu jecel yahay kooxda Watford 12 gool oo ku lug leeyahay 7 mar oo ka hor yimid kooxda Watford waa ninka ugu sareeyay umaleynaa 10 goolna waa uu dhaliyay 2 goolna uu caawiyay marka waxa dareemaysaa Aguero aad u jecel yahay kooxda Watford waa tahay Kaahiyo markan waxaan rabaa kulankaasi hadii wax kaaga dhaneen hal iyo labo waxyaabo ugu waaweyn kale oo markaasi wargeysyadu ay qorayaan waxa kamid ah ninka Katuza ahaa Milan macalinku ah ayaa la leeyahay laftigiisa waa markan uu baxay waa marka hal mar aan ku laabanaya meesha waxaan rabaa inaan hal mar ku laabto labada macalin ee finalka isagoo hor imaanaya waa laba macalin oo Spain wada dhashay Pep Guardiola iyo macalinka kooxda Watford Layliya ee lagu magacaabo Javi طبعا
Spanish meesha isku garaaci doona wali ciyaartooyda qaar badan oo Spanish ku jira marka wali waxa lagu leeyahay waa markii ugu horeysay ama markii ugu dambeysay oo sidaas ay dhacdo laba macallin oo hal wadan ka soo wada jeeday ay kulan final soo yimaadaan waxay 2001 oo ay iskor yimaadeen markaasi Gerard Holders iyo oo Liverpool markaasi watay iyo Arsenal oo maamulayay markaasi Frenchmanka Arsene Wenger waa Gerard Holders oo Liverpool markaa maamulayay iyo Arsene Wenger oo kooxda Arsenal maamulayay waa laba nin oo dabcan Faransiis ah ayaa isaga hor yimid marka waxay noqonaysaa markii ugu horeysay iskoorada aad iyo aad marka Guardiola waxa lagu leeyahay wuu jecel yahay finaalada inuu tago oo uu ku guuleysto dhowr final oo uu tagay lagama qaadina leeyahay marka waa nin bitiga aad u markaas ugu biti badan haddii City ay koob kan qaado waxaan dhihi karnaa marka City waa kooxda ugu wanaagsan qaaradda Yurub sidaas la dhihi karaa dabcan waa mar haddii koobkan qaado Ingiriiska dhan Yurub ayadoo ay tahay iyo haddana Ingiriisku waa waxa la dhihi karaa wax walba ka sameyn kartaa kaayo marka aynu ka soo talaabno sheekada la xiriirta finalka oo aad adiga laftigaada u falanqaysay sidan mar aan ka dhaxgalay aan daawadayaashu u sheegnay oo ahaa in ninka Katuza kooxda ay dirayso ayaa ugu waaweyn waxyaabaha kale ee dunida ka jira xilligan sportiga sidoo kale ninka marka Everton u ciyaara marka lagu magacaabo Richarlison ayaa isaguna waxa leeyahay lacag 65 milyan ayaa lagu doonaya koox dhowr ayaa doonaya waliba ciyaaryahanka Faranso Richarlison markii lagu dhawaaqay xulka qaranka ee wadankaas Brazil oo u dhashay runtii shaashada hor fariistay isaga iyo qoyskii familka oo dhan in baliiska uu ku soo baxo familkii oo dhan ayaa daawanayay ciyaarta waalidiintii dhalinyaradii caruurtii la dhalatay shaashada la soo wada hor fariistay dhalada la socda marka wixii in magacyada la soo qodbay markaas Richarlison shaashadu ka soo baxay ciyaaryahankan waa booda markuu yiri wuxuu isku duubay wiil walaalkiisa meesha fadhiyay cidii dhama isla kaceen sacbis iyo mashxarad iyo waxa ka dhac meesha baraha bulshada aad u hadalhayaan farxadda uu ka qaaday Richarlison in xulka qaranka loogu yeeray laakiin xulka qaranka Brazil ciyaartoy badan oo aan sanadihii ugu dambeeyay ku jirin ayaa lagu soo daray Faranso ciyaartoydaasi waxa ku jira ciyaartoy aad u soo muujiyay xilli ciyaareedkan waxa kamid ah ciyaaryahanka lagu magacaabo Neres oo kooxda Ajax weerarka uga dheela waa loogu yeeray qaranka Adhura kamid ah oo Barcelona u dheela qaranka loogu yeeray dabcan hore uga mid ahaan jirin badana sanadkii hore ugu horeysay waxa loogu yeeray ciyaaryahanka loo qadka dhexe ka dheela oo isla markaasii muhiim oo kooxda AC Milan u dheela Paqueta waxa lagu leeyahay waa shaafiga waa akaakaha labaad waxa lagu leeyahay Brazil soo baxay ninkaas bal ka waran mar haddii Marcelo waxaan arkay waa laga dhaxwaayay liiska ciyaartoyda Brazil waana dadka ama ragga ugu fiican oo kamid ah isaga maxaa sababsaday wala xaqiiqadu waxay tahay markaad kooxdaada wax badan tayo badan ku soo bandhigi weyso xirfadaada hoos u dhacay sameeyne waxaad ogaataa Faranso waxyaabaha kubadda cagta laga ogaado laga bartaa waxay tahay ciyaaryahanku kooxdiisa xirfadda uu ku soo bandhigo iyo tayada uu garoonka ciyaarta kooxda ku muujiyo ayaa qaranku si gaar ah ugu qiimeeyaan qaramada wax dareekaysa ciyaartoyda binjiga ka ah ciyaartoyda kooxahooda binjiga ka ah qaranka looguma yeero badana hadda ciyaartoyda loo yeero dhan waa ciyaartoy totolaar ah oo lagu tashto kooxdu ku tashtaan marka Marcelo waxa uu lumiyay booskiisa rasmiga ahay waxaad arkaysay in Philip Lewis oo u dheela kooxda Atletico Madrid loogu yeeray booska tareega Marcelo baneeyay waxa kale oo jira ciyaartoy badan oo aan loo yeerin inkastoo ciyaartoy tayo waxyaabo badan soo bandhigay oo Fabinho uu kamid yahay aan qaranka loogu yeerin Willian oo kala kamid ah kooxdiisa Benji uga jira looma yeerin marka waliba xulka qaranka Spain xulalka ciyaaraha wax badan soo bandhiga la wacaa Santi Cazorla oo muddo 10 sano haatan aan ka yarayn aan qaranka loogu yeerin ayaa loo yeeray maxaa keenay kooxdiisa wuxuu ku soo bandhigay ciyaar iyo xirfad aad u sareysa waa tahay guud ahaan falanqeynteena ayaa halkaan ku soo gabagabeynayna
mar kasta oo kulamo waaweyn sidan oo kale ay jiraan ka iyo falanqeyn ayaa daawadayaasha xogta ciyaaraha u soo gudbin doonaa laakiin maxaa leenahay daawadayaasha ku xiran bartan xogta ciyaaraha markasta subscribe dhaha oo hala share garay arrintan Soomaa wuxuu yiri abwaankii warxta fariirayda ku dheh marka haddaad xitaa daalantihiin oo aad ka gaari weysaan subscribe meelaha isaga saara xitaa suulka horkiisaba isaga dhaho bal page-ka subscribe noo saara xogta ciyaaraha kala socda daawasho maaragtay ha yeesho weliba arrimaha ciyaaraha waad soo xirtaan u malaynayaa Jose Mourinho wuu hadlay maxaad ku taqaanaa Jose waa hadal kulul yahay ninkaasi isaga iyo Zlatan Ibrahimovic iyo dad waxaa jira say rabaan u hadlaan weliba aad u faham badan waa faras waa booto badan yahay ninkaasi wuxuu yiri gabar walba uu yiri aroos gabar walba aroosa wuxuu yiri maalmaha hore ayaa aad loo qaadqaadaa wuxuu ula jeedaa hadalkaas wuxuu yiri maalmaha hore sida ay tahay u shidan tahay guriga oo dhex muuqato marka dambe waa dhariiqane marka hadalkaas waxa uu la jeeday dadku ay u fasireen oo bahda ciyaaruhu ay u fasirayaan macallin Solskjaer ayuu ula jeeday waayo macallin Solskjaer intaan macallin rasmi ah kooxda looga dhigin waxa uu soo bandhigay iyo kooxdu wax si isula qabsatay macallin markii si rasmi ah macallinka loogu dhawaaqay heshiis ku dhawaaqay macallinkii waa la waayay kooxdii guuldarro marka macallinku aad buu ugu digtay Solskjaer Jose weliba waxa uu leeyahay waxaan aad ugu faraxsanahay in bisha Juulaay ay soo socota aan dib ugu soo laaban doono xirfadda tababarnimo dabcan marka waxa la leeyahay koox dhowr doonay Inter Milan aad doonaysa waxa doonaysa Juventus waxa la leeyahay macallimiinta ay raadinayso ku jira waxa la leeyahay kooxdiisii hore Porto ee laftirkeeda way raadinay waxa la leeyahay wararka qaar xitaa ciidan Chelsea ayaa suuragal dib ugu laabtay Chelsea aad buu ninkaas ugu soo bixi jiray oo wax badan buu soo aad iyo aad waa tahay marka waan soo xirinaynaa waxaan idin leenahay asxaabay maalin wanaagsan